dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag labadii maalmood ugu dambeeyay hadal haya xaaladda degdeg ee Ceelafweyn gar adag waxaana shacabka reer Ceergaabo ay saaka ka hadleen xaaladda degdeg ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu ku soo rogay gobolka Sanaag iyagoo dhinaca kalena soo dhaweeyay kalfadhiga ay yeesheen baarlamaanka Soomaaliland ay ku dadafayeen go'aankii madaxweynaha uu xaaladda degdega ku saaray gobolka Sanaag waxaan halkan uga mahadnaqayaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee labada gole iyagoo saaka diiday bandowgii ama emergency-gii lagu soo rogay gobolka Sanaag ee garadag Ceelafweyn iyo Ceergaabo baarlamaanka waxaanu leenahay aad baad u mahadsantihiin shacabka reer Sanaag waad u heeliseen waxaanu leenahay maalinta dambe sabtida dib loo ballamay baan ugu maqaalaa waxaanu leenahay tii dekada iyay noqontii dekada oo yaada leedin soo mustafayn waa gobolkii oo laga saarayo meesha oo laga reebayo gobolada kale saami ahaan iyo sad ahaan iyo muuqaal ahaan iyo magac ahaan intaba waa laga reebaya weeye taana waxaan leeyahay madaxweyne midna qabata maaha una dul qaadan kari mayno taas midaanu yeelanana maaha mid nooc cuntamaysana maaha taas waa qodobka labaad waxaan hambaliyaynayaa labada gole ee guurtida iyo baarlamaanka saaka codkii la hor keenay ee ay majoritigoodu kaga aamuseen oo ku diideen ilaanu mid soconaya ahayn waxaan aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa baarlamaanka gatay go'aankii xaqdarrada ahaa ee uu qaatay madaxweynuhu uu soo saaray dadafeeyey baan aad iyo aad u hambalyaynayaa waxaana leeyahay maanta ma golayaal qaran u ekaateen ee halkaa ka soo noqonina xaaladii degdeg ahayd ee lagu soo rogay gobolka Sanaag waxaan leenahay ma geeyo gobolka Sanaag in xaalad degdeg lagu soo rogo horey wax uga dhici jireen waa la maareyn jiray dhib kasta ha yeesho laleeyahay xaalad degdeg ee gobolka Sanaag baa lagu soo rogay arrintaasi arrin cid garan kartaa wax leeyahay wax ay u jeedo iyo waxay ka jeedo ma jirto halka waxaan ka hambaleynayaa go'aankii saaka baarlamaanka labada gol ay gaadheen ee ku saabsan qadiyadda bandooda gobolka Sanaag marka aad baan u soo dhaweynaa shaqadoodii ku habboonad way qabsadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkii partial law state of emergency-ga ee uu ku soo rogay gobolka Sanaag hal mid baan leeyahay waxa weeye madaxweyne gobolkani xaaladda amniga ee aad u cuskatay inaad go'doomiso waa mid ka timi mas'uuliyadda ciidamada iyo waxa weeyaan qaranka waa mid ka timi oo idinku aad gabteen aad baan uga murugaysanahay waanuna ka soo horjeednaa ama go'aankii madaxweynaha ka soo yeedhay ka hor yimi iyagana aad baan u hambalyeynaa waanuna garab taaganahay cali aadan daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo